Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamay. Kusoo dhawaada cashirkeena labaad ee KineMaster Video Editor. Cashirkeeni koowaad waxaynu kusoo baranay project assistancy oo habka assistancy habka ku caawinayo projectkaaga, yani adoo video editing garanaya like basic lagu caawinayo. Habka advanced ayaan maanta insha Allah sharaxaad ka bixin doonaa. Habka horena wax yar baynu ku dari doonaa insha Allah. Horta videogii hore hadaynu waa ka ku dhufano qaab markasta aad project cusub aad samaysatid saas kugu soo bandhigi doonaa. Projectgeeni hore aan hadda soo sameynay hadda waa ka wali waa wax project wax video caadi kama dhigin. waynu daawan karnaa hadaynu play niraahno waa ka qaabkaas inoogu soo baxaya. hadaynu play niraahno waa daawan karnaa sawirada dhaadheer wuxuu qaabka madaxa kurka uga jarayo. Sawirkan hadda kale waa sawir caadi oo sawir yar. Hadaynu hadda isku eegno qaabkaas u soo baxaya, halka dhowr option ba ku yaala. Option kaas oo ah duplicate project, option kaas oo ah inaad daawatid, iyo option kale oo ah inaad YouTube, Facebook, Google Plus iyo barnaamijka kale inaad ku share gareysid, iyo inaad save to gallery inaad tiraahid oo uu video caadi oo gallery-ga ku imanaya aad ka dhigatid. oo hadan save to gallery ku dhufatid quality-gaaga ayuu ku weydiinaya high iyo low. hadaa high ku dhufatid wuxuu ku weydiinaya high oo kale. hadda yarto export project, yani export dibadda ayuu ku geynaya project-gaagan. waa project-ga basic ayaan abuurnay. hadda waa project basic ayaan abuurnay. haddaan play yiraahdo, play gallery-ga CG ayaan dhex yiraahdo ama video player-kayga aan ku furto, waa aragtaa waa isu saaraya first halka ay ku qoran tahay, halka waa aragtaa video ay ku qoran tahay, iyo kan saddexaad oo editing ayaan ku qornay. hadda waa wax caadi oo aan ka heli karo videogayga, waa video player-kayga caadiga aan ka daawanaya. waxaynu soo sameynay inaynu video export ku sameyno. habkii labaad ee advanced ahaa oo runtii aynu casharo fara badan ka diyaarin doono qofku ay tahay inuu fahmo. hadda yarto waxaad arkaysaa saddex hab inaad mar sawirada isu keentid, inaad animation ku dartid, iyo inaad teamka animation u sameysid, iyo in aad cod ku dartid. saddexdaa waa soo helnay. cod inkastoo ku darin aan wax music ka saarin laakiin waa lagu dari karaa. habkii ugu dambeeyay kulaha halkaas laga daraa markii waa ka noqday inaan ku daro moodi laakiin kuma darin. habka saddexaad, habkaas saddexda hab ay ahay inaad animation ku dartid, inaad sawirada isku dhex dartid, saddex sawir oo kale isu keentid meel ilaa wax inta ay everyone sawir kasta inta ama inkastoo la eegyihiin aad isku dardari kartid. iyo inaad ku dari kartid animation, iyo inaad cod ama music dul saari kartid, iyo inaad qoraal ku dari kartid text. habkaas markaynu soo sameynay waxaynu sameynay inaynu export ku sameynay videogeena. cashirkeena labaad iyo wixii ka dambeeya insha Allah waxay ku saabsanaan doonaan qaabka loogu edit gareeyo iyo tacticooyin yar yar oo aynu ku baran doono insha Allah. haddaynu soo furno empty project waa kan qaabkaas kugu soo bixi doonaa. haddaan xoogaa faahfaahin ka bixiyo empty project horta wuxuu ku saabsan yahay media wax la yiraahdo media browser oo ah yani halka aad inta ugu badan la isticmaali doono, ama inta ugu badan lama isticmaali doono runtii layer baa la isticmaali doona, laakiin media browser waa halka ugu horeysa first la isticmaali doono ama marka ugu horeysa. waxaana laga soo gelin doonaa waa taa waana media browser baa la yiraahdaa. waxaan laga soo gelin doonaa wax videoyadaada, sawiradaada, waxaad doonto ay nooc. halkan audio baa la yiraahdaa oo hadda yarto markaan taabtay wuxuu leeyahay please add video clip or image. wuxuu ku dar ku leeyahay si audio-ga aad soo gelin kartid. yani halkan codadka iyo meelaha waxaas laga soo geliyaa. halkan oo kale waxa la voice recorder oo cod baad ka duubaysaa. hadda yarto kale project waa soo diyaarinaysay, cod baa meel ka akhrin, codkii inta ka jirtid baa halka cod kale ku daraysa. codkii yara intii yara kaadhneys leedahay way ku buuxin kartaa. halkan layer baa la yiraahdaa waa halka ugu badan inta ugu badan isticmaali doono. inta ugu badan waa halkan isticmaali doono. haddaynu hadda yarto tijaabino media player-kaas oo kale waa ka wuxuu ku gudbinayaa qaybta sawiraantaada mobilka kugu jirta. haddaynu ka doono sawiro oo kale aynu sawirkan doorano. sawirka markaynu doorano aynu kan kalena doorano wuxuu u dhaxaysiinayaa labada sawir waa aragtaa
calaamadaas u dhexaysiinaya. Hadda okay haddaan yiraahdo aan play yiraahdo, sawiraan saasay soconayaan, waqtina way qaadanayaan runtii. Saasay soconayaan, saasay soconayaan. Waa aragtaa saasay soconayaan, waqtina way qaadanayaan. Waxaad samayn kartaa inaad koobtid ama yaraysid sawirkaaga inuu intaaba dhaafin, oo yacni haddeertoo kale saa tiraahid intaa ka dhigtid kana inaad koobtid oo kale yaraysid uu markaba saa noqdo, yacni aad dejisid. waxaa kaloo samayn kartaa halkaa waxaa aragtaa in calaamad cadaan u dhaxaysa labada sawir. Sawirkan halkaa markuu soconayo haddeerto intaan sawirkan kale loo gudbin oo saa u soconayo, halkaa sawirka kale intaa isu gudbaysa waxaa lagu dara wax la yidhaha animation oo qaab u soo geli karo kale. haddaynu haddeerto ku dhufanno oo kale halkaa dhexda aynu ku dhufanno labadaa sawir, waa ka animationadu way fara badan yihiin. haddaynu hadda taa 3D transactionka ka dooran, 3D transactionkaas ayaa ku nooc u kala baxa, ku nooc ayuu kala baxaa. qaabkaasoo kale ayuu noogu samayn karaa, qaabkaasoo kale noogu samayn karaa, qaabkaasoo kale noogu samayn karaa. qaabab fara badan buu kala baxaa. sawirka haddaynu in yar xoogaa weynaysano animationka si caadi u noqdo, haddeetaynu ku dhufanno oo kale animationka dhexe, qaabab fara badan saasoo kale ayaa oran kartaa. saasoo kale qaababku way fara badan yihiin animationada. hadba qofku qaabka uu rabo, qofku hadba qaabka uu rabo ayay ku xiran tahay. oo qaabkaasoo kale haddayna tiraahdid, oo qaabkan oo kale haddayna ka dhigi kartid. classic baa jira mid yado qaabkaasoo kale waad aragteen fiidyadu marka qaab bay usoo baxaan. casharkeennii maanta labaad intaas ku ekaan doonaa insha allah. casharka labaad intaan isugu soo noqon doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.